السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت شرفت له ديك صدوادا channelka maanta may basiin haya qofka sidii macnaha luqada ingiriiska si fudeed macnaha sidii oo ku barid kar meera ina macnaha senso bandhigo mayba jirte shan siyaabadood oo qofka luqada ingiriiska si fudeed ku barin kara marka xadikin kureet marka oo xadikin kureet ina macnaha casharka marka koowaad oo gaaro ina ay fadlan subscribe nisar bangalelka macnaha furo sidii mar walba si keesa gaaran casharyaal useb macnaha casharyaal useb ku geli doon sidii macnaha iyo kiisa gaaran marka shanta siyaabadood oo qofka luqada ingiriiska ku barin karo make it and what are they marka shanta siyaabadood mayba kamid ayana and stay motivated, practice every day, train yourself to think in English, make friends who speak English, don't be afraid to make mistakes. Okay, shantaas ka mid siyaabooyinka qofka ingiriiska si fudud ku baran karo and stay motivated. The first one mid correct ma stay motivated and macnaha isdhiirgeli marka qofka haddii macnaha barada luqada ingiriiska kow ina isdhiirgeliyo waa ina qalbisho macnaha hiraaro ina macnaha luqada ingiriiska qofka ina bari rabo waa mid koowaad taasoo macnaha ina niyad lahaato walbarashada aad bararoyd ina niyad aan lahaato. Okay, the second one maywa practice every day marka ina macnaha ina kana naqto macnaha way oo subariti ina kana naqto practice every day ina ashrooyinka ina macnaha practice ina sameeyo keel saasna macnaha ku barid karta luqada ingiriiska ina macnaha ashariyaasha kana naqto keel akhrito taasna macnaha kin fudusayaasa ina qofka luqada ingiriiska si fudeed ku bararo. Marka mid saddexaad train yourself to think in English ina macnaha ahaanta ina istrin greater ila luqada ingiriiska ku barto marka training yourself mayba given ay macnaha maadaama practice sameeyay step kalamat practice sameeyay hadina practice ka sameeyay in train yourself macnaha mix qaadase way as practice sameeyay hadina ma iska fiiriyaasa ina ada sentenceal useb ina macnaha as abaka dhisid karto macnaha make sentence on your own ina abaka jumladooyin ina macnaha luqada ingiriiska ka sameey karta iyo iska fiiriyaasa. Okay, siyaabada oo shanaad make friends who speak English macnaha sameyso saaxiibayaal lahaw ama sameyso saaxiibayaal oo macnaha luqada ingiriiska koodaan saaxiibayaasha macnaha anaga dad oo ingiriiska ku koodayaan luqada ingiriiska soo ka hadalaa marka adii saaxiib sameeyo oo luqada ingiriiska ka hadalaayaan ama ku koodayaan iyo macnaha may adii siyaadeyna adii macnaha ma iska diyaasay inta ina iyo koodo luqada ingiriiska marka friendska saasa kin ka caawiyaan dadka luqada ingiriiska oo ku koodo adii ina iska fiirito luqada ingiriiska ina iyo koodo ama ina ku kood karta ma dadkaas oo kale macnaha friends who speak English saaxiibayaasha oo luqada ingiriiska ku koodaan. Okay, step number 5
step number 5 ما بني شوية معناها don't be afraid. Don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to make mistake. مرقف اللغة الإنجليزية كاتو si fudeedku bararo waa inaad ka hadalto luuqada ingiriiska adi oo absakenka jiraan macna absi la-aan. Don't be afraid ama absito macnaha to make mistakes inaa macnaha qaladyaal sameyto macnaha luuqada ingiriiska hadii macnaha kokoodo qalad macnaha adhow disaa isaa macnaha adhow macnaha af ingiriiska macnaha af ingiriis macnaha dijabsan leeyahay dadka in kushoolaayaan saan way macnaha no taas ma loo baahan yahay. Don't be afraid to make mistake ama hanka absto inaa macnaha qaladyaal sameyto mar walba qalad samey kar iska fiiri macnaha qaladyaasha sameyto mayba jiro qof macnaha luuqada ingiriiska oo kasaw mayba iska fiiri qofkaas ama making saacidee ina si fudeed ama in si fudeed macnaha ku barato wana usuna keensaho meesha aad qalad sameyto kiisahe marka saa isaa ma dhahaw saan iyo saana la dhehe. Okay, marka taas way nidaam macnaha shanta siyaabadooda qofka si fudeed ku baran kara luuqada ingiriiska. Marka taas macnaha shanta siyaabadood si haye maanta inaa qofka oo bararo luuqada ingiriiska meel ala meel joogto inaa macnaha si fudeed ku baran kara kadhalika saas oo kale dadka luuqada mayka rawan ina baran the same waa sidan oo kale shantan siyaabadood. If you want to learn my language you must have these 5 steps that I have mentioned in a macnaha si fudeed kufuusado mayka barmantis also waa taas. Okay, marka casharkaan maanta macnaha xalaasa ka koobanaayay waa shanta siyaabadood qofka si fudeed ku baran karo luuqada ingiriiska. Yes, mar qofka si fudeed macnaha luuqada ingiriis saasa ku baran kara. So thank you for watching my videos and marka subscribe like iyo comment iyo share bacdin kelmaantan marka mayba sindhehe aati aata maxsantan mar walba macnaha ila socda channelka casharyaasha aan isdhigow anigoo macalin Abdiqaadir إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.